بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إلهي بمهد سكله نسكو كان مدشان قروح ذي قيمها يقايها مدن مدشان بلال بقران وظهرين إلهي بمهد علينا مركا كوبادي مرة بعد بإلهي بمهد علينا ما كان وحنا مهد علينا مرتي شرفته كان دوان قيمها يقايها مدن هديهن حسبي ذا كان دوان حسبي وعيد وضني ويبقوا كانوا وين كيستين حفلة قبصونته سواء كان وحنا مهد علينا أورك النجاد يقول من السعاد عرمية وينما يشوكته قدوميها قرب كهوين كحسبي وعيد أو يدنا مهد علينا قدومي كحجين كأورك هبلا عرقنا فذاك أجاسمها أورك هبلا عرقنا فذاك يقول من خصمت شجع أورك هبلا عرقنا فذاك وسواء كان وحنا مهد علينا مرتي شرفت حاجة نسكو تمدي دمانتين كسر قريب شيء حفلتين وحنا لا يمكو جواد وحنا نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام أنا هذا البدنها من اللي جنب بحشي سومالي وتلاحظه أنا هذا المشان اللي جنب فرنا ما دام يتشوغان مضحدي كانوا دوانيد كول بنا كصعدة والرضا هوينكا waxaan xaggan uga mahad celinayaa dadka qiimaha iyo qaayaha mudan ee ku celinayaa imkan ay ma soo ajiibay walow waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xisbiga ucid iyo walibana wadani oo iyagu xafladan furitaankeyga amba asaastaankeyga inoo lahaa ururkan aad arkaysaan ururkan habfurteen hablaha ariga naafada ka maahan urur ay u furteen qabaa'il سينو شيغان ما هنا أور لو فري سياسة بل سوا أور رايو فرين إني عاويان ولا له كله كو كدح سونتان كو دح ترا غرياشا كواسو لو كدح إلاوي هبلها ني وا هبلو إيغو نفتو هير سرا غارسيي مرر بدن جعل ني هير غارسيان هaweenkooga إن شاء الله waxaan rajeynayaa in hadaynu ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan dhalinyaradu ay meel weyn iska saaraan oo xil weyn iska saaraan inay wax la qabtaan hablaha ariga naafada ka walibana maanta aad waxaan ugu mahad celinayaa teamka social worker-ka oo aad iyagu maanta noola shaqeeyay in badan aan la shaqeeya aad baa ugu mahad celinaya balse waxaan sheegi lahaa oo xaggan ka sheegi lahaa in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay gabtay xilalkii loo magacaabay ay dadkan u soo doorteen dadkii soo doortay ma ahayn oo kaliyaata dad laxaadkooga qaba balse waxay ahaayeen dad haday ariga naafaka yihiin iyo haday dhagaha naafaka yihiin iyo haday jirahaan buu naafay yihiin ayagu soo doortay dadkan maanta aad arkaysaan ma ahan dadkii looran lahaa amba xafladooda aan laga soo qayb gali ahayn laakiinse waxaan aad uga xumahay in xafladda laga soo qayb gali waayo ururkan hablaha ariga naafada ka waxay naga mudan yihiin karti iyo dadaal ay walibana ay garan waayeen ururada kale ee hablaha ah maadaama inaku nahay hablo ama ku hadlay ururada hablaha inaan garanno waxay noo qabteen ururkan hablaha ariga naafada ka weeyaan inaan garab siino haday nahay haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland in hadaynu nahay xukuumadda aan garab siino weeyaan maadaama ay qabteen wax badan oo ayna ku qaban lahayn waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa asaasaha afhayeenka isku xidhaha ururkan hablaha ariga naafada ka hoodo maxamed iidaan oo ku magac dheer lamaanaha ariga naafada ka waxaan leeyahay hoodo maanta waxaad soo miraha soo gaarsiisay iyo waxaad maanta tartay dadkaagu aad baan kaaga mahad celinaa adiga iyo walaalaha Sweden kale sida sharafta iyo karaamada leh ee aad maanta noo soo aasaastay ururkan quruxda iyo qiimaha leh ee maanta aan oran karno ku dayasho naga mudan yahay hadaan nahay haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland hadaan nahay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa maanta ku dayasho naga mudan ururkan aan arkayno waxaan kaloon sheegi lahaa inay dadku mar walba yasaan mar walba qariyaan xuquuqda haweenku leeyihiin khaasatan haweenka naafada ah waxaan u sheegi lahaa dhamaantood in hadaan nahay haweenka ariga naafada ka aanan ku joogsan doonin anoo ku hadlay afkooga aanan ku joogsan doonin hadallo ay dadku nagu raahdaan sidoo kale aan qabsan doono wax kasta oo ay qabsadaan dadka kale anagu hadaan nahay haweenka ariga naafada ka arago kaliyaata naafaka ma yihiin balse muhiimadu indaha la sheegaya ma ahan ariga aad wax ku arkayso balse waa qalbiga naafada aan moodaysan maaha indahaad arkaysaan balse dad badan oo maanta aragoogi qaba ayaan ka caqli badannahay oo aan ka maskax badannahay oo waliba ka karti badannahay waxaan u sheegi lahaa dad yowga mar walba yasa haweenka anoo ku hadlay afka haweenka in haweenka ariga naafada kaahi ay ku dayasho iyo waliba kaalin muhiim ah ay kaga jiraan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anoo ku hadlaya afka dhalinyarada waxaan haweenka ariga naafada ka u sheegi lahaa in aanay marnaba niyad jabin aanay marnaba maxaa la yiraahday u joojin dadka qaar
waa aad ugu mahad celinaya gudoomiyaha ururka hablaha aragga naafada ka ah sidoo kale gudoomiyaha xigeenka oo leeyahay iyo agaasimaha iyo xoghayaha dhamaantood xubnahaas oo dhan waxaan leeyahay waxaana tusteen inay jiraan dad aragga naafada oo dadaal badan waxaana tusteen oo aad noo jabiseen wadadii ah habluhu waxba ma qabsan karaan waxaana tusteen oo aad anaga noo tilmaanteen inaan wax qabsan karno anagoo wadankeega joogna wax badan aan qabsan doono waxaan idin sheegayaa aan leeyahay ha u joojinina nacabka iyo diraalaha hadalada xunxun ee niga soo gudbaya haday yihiin dhalinyar iyo haday yihiin xukuumadaba idinku waxa tihiin waxa iska dhigtaan idinku ma tihiin waxa dadku idigu sheegaan dadku waxay yiraahdaan waa naafo balse aan waxaan aaminsanahay inay jiraan waxa la yiraahdo naafo balse naafanimada dhabti ay tahay maskaxda qofka qalbi aan lahayn ee maskax lahayn qofka aan ilaahay ka cabsanaynin ee ilaahay alla ka cabsigiisa ka fogaaday kaasa la oran karaa waa naafo dhab ah balse naafo ma oran karno qof lixaadkiisa mid kamid ah ilaahay ka qaaday qofka maanta dadaalka iyo kartida inta la muujiyay ina tusayna waxa soo dhan qabsan karaan waa haween aragga naafaka waa ururku dayasho mudan waxaan u sheegi lahaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan in hablaha hiil iyo hoob la garab istaago inay waxay jecel yihiin la gacan qabto waliba aan u sheegi lahaa maxalada xisbiyadeena kala duwan iyadoo aad ugu mahad celinay markuu labaad xisbiga wadani iyo ciid inay xisbiga kulmiyana uu kaalintiisa soo qaato ayaa rajaynaa maadaama uu yahay xisbiga xilka hayay waan ku dhaaraaday waxaan leeyahay hadal badan haama lagama buuxsho aad baa idin salaamaya balse waxa uu sheegi lahaa hooyooyinka haysta caruurta naafada waliba aragga naafada ka ku haysta guriyaasha yaan la idin oranin caruur naafa ayaad haysataan guriyaashiina ku haysta balse waxa tahay hooyo ha kula mid ahaadaan caruurta naafada haysata caruurta kale ee aad dhashay guriga ku jooga caruurta kale aad iskuulada geysanaysaan waxa anagu ururahan u furnay ururahan maanta loo furay waxa weeyaan cod kaasi dadkaasi meel dheer la gaarsiyo in dadkaasi laga soo saaro guriyaasha hoostooda lagu ilaaway haday tahay xukuumad iyo haday tahay shacabba in dadkaasi loo tafaxayto ayaan soo jeedin lahaa waliba ay ka qayb galaan xisbiyada waxaan aad ugu mahad celinaya marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee si fiican ay dhageysanaysay waxaan digaga baxaya mar walba haystiganina hana is oranina waxa tiin dad naafa waxa gaari kartaan hadaf kasta oo nolosha ay ka leeyihiin waayo aniga iyo adigu waxaan nahay jisay waxaan leenahay xaq iyo xuquuq isku mid ah taasi dastuurkeena inoo ballan qaaday waxaan leenahay dad isku mid ah oo sharci iyo nidaam ku kala socda ha u jabina cadawgiina hana is oranina naaf ayaa tiini guyaasha fadhiya ka soo baxa codkiina meel dheer gaarsiiya baad ilaahay waxaan digaga tagayaa salaanta islaamka hadalkana waa idigu dheereeyay raalina iga haada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.